Assalaamu calaykum. Cabsida iyo khajilaadda fagaare ka hadalka. Haddii aad aragto 5 carruur ah oo gaadhi dabada haysta, kadibna aad u yeerto oo waaniso adiga oo ku leh arrinkan aad samaynaysaan waa ceeb, waxaad noqotaan fariido oo si fiican wax u barta. Markaad carruurta la hadlaysid ma khajilaysid mana naxnaxaysid. Ka waran haddii lagu yidhaahdo ka hor hadal 5 macallin oo jaamacadda wax ka dhiga, dabcan waad naxnaxaysaa, waxoogaa dhidid ah ayaa kaa imaanaya iyo kolba inaad madaxa xoqato, waayo aad 5 carruur ah hadalka ugu dudubinaysaa, 5 macallinna aad saliidda iyo biyaha isugu daraysaa. Qof walba waxbuu ka baqaa, qaarkeen diyaaradda inaynu fuullo ayaynu ka baqnaa, qaarkeen meel dheer inaynu korro ayaan ka baqnaa, qaarkeen baranbaro inayna taabato ayaan ka baqnaa oo waxaaba dhacda sidii in qofka libax taabtay oo kale in la moodo. Sidoo kale qaarkeen waxaan ka baqnaa haasaawaha iyo shukaansiga, balse baqashada iyo khajilaadda ka hor hadalka dad badan waa arrin laga siman yahay oo qof walba soo maro. Haddaba 10kan qodob ayaa ka mid noqon kara arrimahaad hore ugu marin karto fagaare ka hadalkaaga. Khajilaadda iyo naxdintu waxa ay ka dhalataa shakiga iyo kalsooni darrada. Marka aad 5 carruur ah la hadlaysid, waxa aad rumaysan tahay in waxa aad u sheegaysid ka heer sarreeyo waxa ay carruurtu ka fikirayso oo waad isku kalsoon tahay. Balse markan aad 5 macallin la hadlayso, wuxuunbaa ku leh malaha waxa aad sheegaysaa wuu ka hooseeyaa waxa lagaa filayo. Ama aad isbahdishaa ama aad u ekaataa qof aqoontiisa hooseyso ama Ingiriisiga aad ku hadlayso la quursadaa. Kalsoonida aad naftaada ku qabtay ayaa la yara gilgilay. Khajilaaduna waa dareenka ka dhasha farqiga u dhaxeeya waxa aad isleedahay waa lagaa filayaa iyo waxa aad isleedahay waad isla haysaa. Markuu farqiga shakigaasi weynaadaba, khajilaaddu way kugu sii badanaysaa. Ma jiro wax kaa baabi'in kara khajilaadda. Qof walba waa inuu soo maraa marxaladaha wadnuhu xoog kuu boodboodayo, ee la dhididayo, ee aad iskala garan weyso waxa aad ku hadashay iyo wax kale. Waxa kaliya lagu yarayn karaa naxdinta iyo khajilaaddo waa adigoo ku celceliya inaad dad ka hor hadasho marar badan si geesnimadaadu ay u sii korodho. Xataa dadka aan u haysano inay yihiin khabiiro aan nixin, hoosta way ka naxsan yihiin ee waxa ay barteen sida loo xakameeyo naxdinta. Waqti ka hor inta aanad hadal, si fiican maskaxdaada ha kugu sawirnaato oo ha kuu caddaato waxa aad isleedahay dheh iyo qasdiga aad ka leedahay hadalkaaga. Haddaad qiiro ku hayso awgeed uun hadalka u gasho, way kaa kala yaacaysaa adigoo sawir wanaagsan ka haysta waxa aad ka hadlayso iyo sida aad hadalka u rogrogayso. Kabacdi bilow inaad fikirkaaga qorto. Isku day in hadalkaagu yeesho meel ama 2 aad culays ka saarayso oo aad rabto in si fiican uu ugu duxo dadka ku dhageysanaya. Mowduucyo badan maalin ha ka wada hadlin. Arrinka aad doonayso inaad ka hadasho soo diyaarso oo si fiican uga soo baaraandeg adigoo soo qodobaysanaya. Inta aad kaligaa muraayadda is hortaagto bal is dhegeyso waxaad ka hadlayso, ama qof saaxiibka aad tihiin iga dhegeyso ku dheh adigoo khudbadda ama presentationka ugu yaraan 20 mirid saaxiibka uu kaa dhegeysanayo ama se uu kaa tijaabinayo. Hadalkaaga soo diyaarso, meel ku qor, korka ka akhri, balse ugu dambeynta qodobo warqadda ku soo qoro oo wixii aad qortay oo dhan dusha ka akhriye. Hadalka qaybo guud u qaybso, masalan u qaybi qayb sheeko aad ku soo qaadato, qayb aad arrinka kaga hadlayso iyo qayb aad xal ku soo jeedinayso. Qodobada aad soo qoratay yay noqon hadal dheer oo ha noqdeen kelmado ku xasuusiya waxa aad u jeedo. Masalan haddaad tahriibkii ka hadlayso, waxa aad qodobka koowaad ka dhigi kartaa magac sida Ibraahin oo ah sheeko ku dhacday inan Ibraahin la yiraahdo. Ilaa waa sheeko aad sii diyaarisee, marka aad warqadda ka eegato ee Ibraahin aragto, hadalka intiisi kale ayaad wadanaysaa oo korkaad ka haysa ama wad xusuusanaysaa. Qodobadaadu yay ka badan kelmad ama 2. Marka aad dadka isa soo hortaagto, waxa ugu fiican inaad isneefiso, dadkan soo tigtigan ee ku soo eegayana iska jeediso si aanay kugu mashquulin. Waxaad samayn kartaa sheeko yar oo kale inaad ku bilowdo hadalka. Haddaad doonto khajilaadda lafteeda aad ku bilowdo oo waxaad odhan kartaa ilaa xalay ayaan ka fikirayay waxa aan idla hor iman lahaa, balse markaan iminka halkan isa soo taagay wixiiba way iga kala yaaceen. Marka hala ii dulqaato haddaad aragtaan anoo yara gariiraya.
dadku hadalkaaga way ku qosli wixii lagugu xaman lahaaba waa adigii sii dhameeyey ee yidhi waan yara naxsanahay adiga laftaada ayaa isku qosli oo waxoogaa wahabku kaa duuli marka aad hadlayso sidii yacni maruuxadda oo kale madaxa ha ciyaarsiin ee kolba qof eeg oo isha cabaar ku hay sidii wax halkaa qof uun la hadlaya marka aad waxoogaa hadashaba qof labaad uga wareeg waxaad eegtaa dadka aan sidaa uga khajileen ee aad istaqaanaan kuwaasi uun isha ku hay markaad xariif noqotona adaa cid walba indhaha yacni ka dusin doona oo si fiican u eegi doona adigu waad shakisan tahay oo waxaad ka hadlayso waad isquursanaysaa waayo intaad noolayd oo dhan ayaad issoo arkaysay ood ismaqlaysay oo xiise iskuma haysid balse aamin in dadka kale u tahay wax xiise leh marka aad hadlayso isdhegayso oo ha ku mashquulin waxa ay dadka kale ka fikirayaan adigu iscajabi oo taladaada iyo qiimahaaga ha ka sugin waxa qofka kale ku odhanayo ha iska dhigin qof aanad ahayn oo masalan codka ha weynayn ama ha yarayn hadalka ha dedejin oo ha isku wada dabaqaban sidoo qof wax uu soo qaybay akhrinaya intaasi waxay kaa caawinayaan in aad horumariso fagaarka hadalkaaga insha allahu tacaala muuqaalo badan oo ku saabsan fagaarka hadalka iyo horumarinta nafta ayaan soo wadnaa insha allah muuqaalka sii sheergaray si aan u helo saaxiibo sida adigoo kale u wanaagsan insha allahu tacaala aad baa u mahadsan